asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan daawade kusoo dhowow geesi media podcast waxaana kusoo dhowaataa sheekooyin ku xisigeliya oo ay ku dheehan tahay geesinimo iyo saamaynba geesi media waa isku xidhaha mandheera iyo dunida inteeda kale waxaana kula wadaagi doonnaa muuqaalo iyo waraysiyo dhiirigelin ah tani ma ahan keliya podcast waa hoyga runta dhaqanka iyo saameyntaba qurxinta iyo daryeelka maqaarka waxay leedahay muhiimad weyn oo saameynaysa caafimaadka kalsoonida nafta iyo muuqaalka guud ee qofka daryeel joogto ah wuxuu kaa caawiyaa in maqaarku ahaado nadiif dhalaalaya isla markaana ka badbaado cudur iyo gabow degdeg ah qurxintuna waxay kor u qaadaa muuqaalkaaga iyadoo si gaar ah loo muujinayo quruxda dabiiciga ah marka la isku daro daryeel iyo qurxin sax ah waxay qofka siinayaan muuqaal caafimaad qabo nadiif ah iyo kalsooni sare haddaba magaalada mandheera waxaa dhowaan lagu soo kordhiyey xarun loogu talgalay qurxinta iyo daryeelka maqaarka waana mid si weyn loo qalabeeyey haddaba maanta geesi media podcast waxaa marti nooga ah adna oo ah aasaasaha xaruntan soo dhawow adna barnaamijkeena kusoo dhowaad ku maasan tahay waqtigaadna siisay ama waqtigaad noo hurtay ood ku maasan tahay waad bilaawi kartay inaad saaluun furutid ama meel farmasho aad furutid ama meel qasqaska waxaa lagu sameeyey inaad furutid waad bilaawi kartid maxaa kuu dhiirigeliyey inaad ku biirtid xirfadan oo ah qurxinta iyo sidoo kale hagaajinta iyo daryeelka maqaarka waan dhabahay magacayga waa adna mukhtaar waxaan ku dhashay magaalada mandheera waxaan kusoo bartay magaalada nairobi wax igu dhaliyey in aan barto maqaarka daaweyntiisa waxaa arkay baahi ay u qabaan dadkeenani marka wax igu dhaliyey in aan barto oo magaaladeena aan keeno waxaa rabay inaan kusoo kordhiyo wax dadkeenani ayna ayagana ka saaciideeyaan qurxinta maqaarkooda iyo daryeelka maqaarkooda waxaa isdhahday bal dadkan waxyaala kala sameynaya maakaalay dadkeena wax ka duwan unique things magaalada kusoo kordhi si dadkan ay ugu faa'iidaystaan dabcan waa wax ka maqanaya mandheera waa waxna maaragtay inta badan loo baahnaa in qurxinta maqaarka lagu soo kordhiyo magaalada wax fiican ay ahayd sidee ku timid marka fikraddan inaad mandheera ka furto eedna skin care waad ka furi kartay meel kale sooma meel kale waad ka furi kartay nairobi aad wax ku baratay waad ka furi kartay oo ka dad badan mandheera wajeer waad ka furi kartay gaaris waad ka furi kartid why mandheera maxaa ku dooratay mandheera waxaan ku doortay waxaa waaye inta aan meeltayda aanan furinin meelaan ka shaqaynayay marka waxaa arkay dadkeenan badanaa dadka xag igu yaqaanaan waxaa arkay dad badanaa oo ka imaaday mandheera ama northeastern ka imaadeen meeshaan aadka u kulul ka imaadeen in ay zaa'id ay ugu baahan yihiin arkay daryeelka maqaarka iyo qurxinta maadaama qoraxda same ma ahan nairobi markaa joogto iyo markaa weedagooda same maahan meeshana hash climate waaye soo marka waxa igu dhaliyay in aan barta in aan keeno magaalada tan mandheera marka waxaan arkay wax ka maqan in ay yihiin ayagana zaa'id ugu baahan marka la dhahaa nairobi iyo mandheera marka la dhahaa dadkeenana zaa'id ugu baahi badan daryeelka maqaarka qoraxda maana gubtay marka daana reebo mandheera mandheera qoraxda zaa'id u gubtay gabdhihiina wixii qoraxdan oo saan waxay kusii dareen kiimika iyo wax marsi kale ay kusii dareen marka waxaan arkay in ay igu baahan yihiin zaa'id ee loogu baahan yahay meeshaan compared to Nairobi ma jirtaa qof ama dhacdo aad aragtay oo kugu dhiirigelisay inaad maaragtay barnaamijkan aad bilowdid waxa just something that we have seen waxa aad aragtay oo aad la yaabtay oo dhahday bal kaale dadka ugu faa'iiday my real eyes wax aan ku arkay waxaa waaye gabar ka tagtay dhulkeena northeastern ka tagtay my client ahayd so anoo marka meel kale aan joogay aan ka shaqaynayay markaan ku arkay adii skin care u imaaday
skin care-ka marka aan u mariyay marka productiga oo la marinay is not the same product aan dadkeena aan u isticmaala is not the same product aan dadkaas aan u isticmaala so in ima sheegin intay ka imaaday waxaan arkin markaan dhibkeeda iyo maqaarkeedaas aan arkay aan u mariyay waxyaabo ka mid ah waxyaabo skin care-ka oo wajiga lagu dhaqo aan u mariyay waxaan arkay gabadhi in maqaarkeedii uu isbedel camal bedel aan ku arkay markaan ku arkay aan warsaday markaa waan ka dhaqay wixii waan warsaday markaas waxay igu dhahday dad noodistan waa aragta umalina qoraxdeeda aazaid ee waxay ku isticmaashay chemical marka chemicada markay ku isticmaashay aan ka tiray aan wareystay markaas ay dhahday meeshaan ka imaaday like waxyaabo we just had the conversation marka ay dhahday meeshaan ka imaaday iyo waxaan so dadkeygana badana oo clientskeygana dadkan noodistan ay ahaayeen oo anay meeshii u soo raacayeen qaar yaqaanaan marka waan fikiri marka waxaan isdhahay dadkeenan oo Mandheera joogaan ama noodistan joogaan ugu baahi badan dadka joogaan meeshaas waxa aan sameeyay skin care bis maaha ani treatment sameeyaa daaweyn sameeyaa maqaarka dhintay marka waxaan arkay inay dadkeenan ku nool meeshan aad u kulul ay ugu baahi badan yihiin dadkaas kale waxaas dhaad marka gabadha ku timid kuwa kala ka darnaa Mandheera joogo wax badan waa arki jiray laakiin mid igu sii dhalisay in aan ka fikiray inaan Mandheera keeno intaas ay ahayd markaad ganacsigan aad bilaaweysay dhiirigelin waa soo qaadatay waad ku soo dhaqaaqday fikradda waa la timid caqabadaha ku waaweyn aad la kulantay markaad ganacsigan bilaaweysay maxaa ka mid caqabada iigu waaweyn aan la kulmo meeshaan markaa imaanay isfahan darro oo dadka ay fahansaneen wuxuu u yahay skin care-ki ka dhaadhicin oo koow haddana qofku ku imaanaa markuu ku imaado isfaham waa ani iyo dadkana kala qabsadeen oo skin care-ki aqooni saas ay u laheen so qofkii waa inaa wixii aa bartid isfaham waa wax kaleeto saas u weyn ma dhihi karin so dadka isfahan darrada meesha waxaa ka imaanaysa gabdhahan wiil iyo gabarba waxay barteen marka hore intay meel dukaan ay tagaan markay tagaan qasqas la soo siiyay ama cream la soo siiyay ay marsan jireen sax adiga marka what's the difference between dadka ma aragtay adiga iyo ayaga marka maxaa farqiga u dhaxay maxay ku fahmi la'ay aad isleedahay adiga farqiga noo dhaxeeya ani iyo dadkaas chemical-ka qasa waxaa waaye ani waxa aan sameeyay waa aan daaweynaya maqaarka dhintay chemicada way ku qurxinayaa qurux way ku siin qurux way leedahay qurux way ku siin laakiin hadhow gadaal dambo ee wajiga ay ka haleynaysaa dadka chemical meel lagu isticmaalay meel kala jirta magaaladan qoraxdeeda waxaad aniba the same skin care isticmaalay xagga markaan joogo is not the same skin care I will use when I'm here so marka saas ugu dubanahay ani wixii waa daaweyn maqaarka dhintay aan daaweynayo pimpleska acne-ga ana camal hadda qofka mugtaa markuu ku imaado hadaan aad meesha skin care waay waxaa loo maleynayaa qofkan in hal mar macnaha madowga laga qaadayo caddaan lagu bedelayo so marka qofkan inaad fahansiisid waqti ku qaadanaysaa sax marka qofka fahmana maxaa dhaca marka uu iskeenaa qofka aan si fiican u fahansiiyo asagaaba iskeenaa meeshii marka sidee bay u arkaan dadweynaha Mandheera siiba dhalinyarada iyo haweenka adeegan cusub aad keentay wax bay u arkaan dadka badanaa ii imaadeen oo i warsadeen oo hadda aan ku dhahay isfahan waa yar jiri laakiin hadda way fahmeen aan ku dhahaya dadkaas way ku farxeen dadka actually aan u sameeyay way ku farxeen sax marka dad oo baash raadinayo baahi badan u qabo marka arkaan walaalay ma sha Allah waa nasaacideysay Nairobi aan u tagi jiray meel hebla u aadi jiray dhahay ma jirta ma jirta gabdha hadda maqaarkooda markay ii imaanayeen haleysnay oo haddana fiicnaadeen ma jirta macnaha dad oo iska sabray baash intay marsadeen oo daawada markay marsadaan kala nooc noqdeen ama dead cells qabaan jirkooda so markay ku imaadaan service-ka arkaan how do they say maxay dhahaan maxayna kugu dhahaan ku dhiirigeliyaan misna say u arkaan dadka service-ka aan u sameeyay already dhiirigelin waan ka hayaa dadkaas way igu dhiirigeliyaan skin care ana hadda ay weydiin lahayd maxamed ahaanteeda skin care waxaan u qaataa wax intii wax la samariyo
wax lagu noqdo marka adeegyada aad bixiso dhanka daryeelka caafimaadka bal noo sharax si guud ah say reema dheer ay ku fahmaan ama dunida dhan ay ku fahmaan adeegyada aan bixiyo horta facialka waa laba nooc basic facial aa jira iyo facial treatment basic facial aan dhahnaa idinka marka hadda kinyozi aadiin soo weji manila dhaqo soo wejigaas maxaa lagu dhaqaa dadka badanaa clientskayga ii sheegaan they just use the scrub aan lagu dhaqaa idinka marka kinyozigaas aadiin waxaa aadiin soomaha weji dhaqa aadiin idinka oo weji manila dhaqaa so ani kaas marka wuxuu ii yahay basic facial uu ii yahay kaas oo wejiga oo glowing lagu siinayo product oo skinkaaga ku saabsan noocu uu yahay lagu dhaqaayo lagu glow gareynayo gabdhahana midaas camal basic facialka waa markay aadayaan aroosyada adi occasions ay aadayaan midna ay glowing iska rabaan kaas waa marka basic facial ani kan basic facial ay kaas kan kale aan sameeyo waa treatment waa dadka maqaarka uu ka dhintay oo dead skin cells qabaan haare qabaan pimples gadguduud kaa marka ani treatment uu yahay facials intaadan sameeyaa mida kale aan sameeyin waa body wash waa jir dhaq oo still products lagu isticmaalayo aan sameeyo mida kale aan sameeyin waa massage dada servicekaan bixiyey kuwaas waay dhanka marka facial treatmentka marka la dhaho faahfaahin naga sii marka dadka inta badan reer Mandera waxaad sheegtay qoraxda iyo kuleylka jira awadiisa jirkooda laga yaaba in maartay maqaarkooda laga yaaba inuu waxyaalo soo gaaraan gabdhaheena waxay isticmaalaan beauty products ay isticmaalaan marka ma jiraan qaladaadkaas ay gabdhaha sameynayaan oo beauty product ay sameynayaan oo adiga xitaa ku imaadaan ma jiraan marka oo aad u samaysid qaladaad ay sameynayaan gabdhahaas beauty product isticmaalayaana haa waa ka badin ay ka badiyaan jirkooda cosmetiga waxaan whiteningka ay ka badiyaan jirka markuu ka bato jirkuu react gareynaa marka dambe wuxuu gaaraa stage oo waxaas dhan aa marsanaysid ay waxba kuu tari waayaan uu gaaraa oono mudmadow kugu reebo guduud kugu reebo uu gaaraa maxaa ka mid ah dhibaatooyinka inta badan la xiriira maqaarka ee reer Mandera ay maaragtay aad ku aragtay dadkeena badanaa ma isticmaalaan sunscreen marka maqaarkii muxuu dhalinaa maqaar kale another melanin oo asaga iskiiga protect gareeyo qoraxda iskiiga protect gareeyo dhalinaa marka maqaarka markuu dhaliyo iskiiga muxuu noqonaa laba kalar meeshaan marka aragtid meeshaan marka isku fiirisid meelaa zaid u madow meelaa zaid u cad meelaa cad meelaa madow iskiinkii kala nooc midaas oona keenaysa sunscreen la'aanta daryeel la'aanta as a therapist marka isku fiiriyo maqaarka ragga iyo maqaarka dumarka kii ragga daaweyntiisa kii ragga wuu ka adagii wuuna ka caafimaad badan yahay kan dumarka badanaa 97% annaga mugtaa waa just iska natural saa u dhalanay waa qaarkeena saliid ma marsana saabuuntaas white wash hadaa hel annaga waa intaas naga badan okay maxaa keeni kartaa marka ciladaha keeni karo daryeel la'aanta dhanka maqaarka oo si hadda sheegaysid dhibaatana aragtay maxay keeni kartaa dhibaato may keeni kartaa bas iska caadi dhibaato waa keeni kartaa hyperpigmentationkaas maqaarkaas kaloo melaninka dhali sunburn hadduu noqdo fofada sunburn ilaahay anaga qabta like skin cancers inkastoo meeshan uu ku yaryahay ay keeni kartaa sideen uga caawin kartaa marka bulshadaada so this problem kada aan sheegnay oo reer Mandera haysta sideed uga caawin kartaa waxaan uga caawin karaa in ay gabdhihiina ay ka maarmaan kiimikadan ay marsanayaan oo raggina skinkooda uu galowgareey oo rafaadka iyo dhibka haysto uu ka yaraado adiga ahaan waxaan ma nagu fiirsataa bis waxaad bixisaa talooyin ama tababaro ma siisaa gabdhaha ama raggaba Mandera had saad u imaaday waa siiyaa clientskayga wax aan la talinin qofka ii imaado oon la talinin ma laho waxaa ka mid ah siiba gabdhaha horta wejigooda oo gadgaduudka qabo in ay biyo qabow ku dhaqaan salaadii iyo subaxi iyo galabti inay biyo qabow ku dhaqaanaa siiyaa tababarooyinaan siiyaa inay sunscreen isticmaalaan si jirkooda qoraxda iskaaga celiyo okay qofka waa ku yimaado
maxaad u qabataa inta badan gabdhaha markaad ka caawisa skin care-ka horta dadka markay iga imaadaan gabdhaha horta fasti wejigoodii waa inaan datska iyo oilka saaran aan ka qaado aan pH-kooda aan balance gareeyo markaan balance gareeyo aan hadan skin analysis aan ku sameeyaa صح معناها وجهك دماله waxaad saaraya screen machine ku taasho صح skin analysis aan u sameynaa skin analysis markaan u sameeyay skin analysis waxay u caawinaysaa inaan ogaado xasaasiyadooda biyaha jirkooda ku jiro camal elasticity-ga wax walba ay iga caawinaysaa marka aan arko marka wixii dhib ah aan ku arkay had camal qofka ay biyaha ku yar yihiin jirkiisa waxaan u sameynaa moisturizing balance gareynaa balance moisture so marka ay noo imaadaan skin analysis kulli aan ku sameyno marka aan gudgalayno treatment waxaa ka koob in aan wejigoodii aan dead skin cells-ka aan ka qaadno markaan dead skin cells-ka aan ka qaadno aan wejigii calm gareyno markaan calm gareyno dadka badanaa meeshaan acne ay qabaan oo pimples qaar rashes ay qabaan qaar gadgaduud ay qabaan marka adiga wixii dhib oo skin condition aan ku aragno in aan ka treat gareyno anagoo isticmaalayna mashiintii markaan kabacdi aan treat gareyno and then at the same time qofkan wejigiisa waa treat gareys moogtahay and then aan calm gareysid gabdhaha badanaa markaa treatmentka noocaas camala u samaysid wejigooda wuu isbedelaa guduuduu noqdaa so inaa calm gareysid marka aan calm gareyno aan haddana pH-kooda balance gareyno haddana aan u marinaa wixii qoraxda ka celinaya adna skin care gabdhaha iyo ragga way caawisaa marka laga soo tago dadka dhalinyarada dadka waayeelka anta waxaan arkay dhanka aging macnaha dadkaas dhanka dadka gaboobay macnaha maqaar qofka waxaad arkay waa qof yar balse sometimes wejigiis waa wuxuu noqonaa qof waayeel camal uu noqonaa ama waxa qofka waa waayeeloobay laakiin waxa wejigiis waxa ka muuqdo rafaada ka muuqdo adna skin care maxay u qabanay dadkaas oo kale ta anti aging qofkan waa wax adi qofka camal markuu waayeeloobo misna rafaadka iyo wixii uu ka bato wejiga muxuu yeelanaa wrinkles tutub qofka marka wuxuu ekaanaa da'da dadkaas camal waxuu sameynaa marka anti aging waa wrinkleskaas haddaa ka baabi'isid qofkaas at the end of the day markuu u sabro after some months some waxay qaadanaysaa years maxay helayaan baby face ama dad da'dooda laga dareemaynin marka odayaasha marka adna skin care wadheer waxay kusoo kordhisaa leedahay in xataa dadka waayeelada ay rajada dib u soo celisa adna maxay yihiin qaladaadka ugu weyn ay galaan dadka markay ka hadlayaan daryeelka maqaarka qaladaadka ay galaan kow waxaa waaye inay gabdhihii ku encourage gareeyaan wax la kasaynin quantitygoodii acidka inuu ku badan yahay ku yaryahay waxa markaa isgaraysid at the end of the day wuxuu kuu keensan karaa waxa adi jirkaagan dhan hal mar ku wala caday isnot waxa oo joke maaha serious si wax serious waaye soo marka dad qaladaadka badanaa ay sameeyaan waxaa waaye wax aysan aqoonin quantitygoodii dhibkay dadka u keeni karaan aysan aqoonin in ay dadkii ku encourage gareeyaan adna waxaad noo sheegtay xaruntaada in barnaamijyo badan oo muhiim ah aad ka samaysid oo dadkan aad ku caawisid markii la dhaho dhanka maqaarka dhanka maaragtay treatmentka aad samaynaysid waxaasoo dhan dadka inta badan ma awoodaan ma wax qaali ah ayaa dadka u haysaa oo laga yaabaa qofkan beauty productkaas inuu maaragtay raqiis ku soo helay agtaadana lacag badan ay tahay so marka sidee marka dhanka qiimaha marka la sidee ugu duwan tahay marka taas alaabtaas la soo iibsanaa iyo tan agtaada dadkaad u samaynaysid horta qiimahayga waa qiimo oo affordable oo qof walba uu awoodo even waxaan sameeyaa free services customerskayga waxaan sameeyaa free services free services waxaa waaye qofkan marka aan wejigiisa aan dhib ku arko beecin waa wax affordable oon dhib ku arko aan arka camal inuu joogi karin hal maalin camal uu ku joogi karin oo daryeel kale u sii baahan yahay aan arko waxaan siiyaa free services aan siiyaa oo 3 days waa dadka treatmentka u sameeyo
oo wejigooda halaabsan yahay oo wejiga dhib iyo rafaad uu ka qabaan waxaan siiyaa free services aan bixiyaa weli oo even qaar taa weekan siiyaa ma jirto meel oo 1 week free services loo siinaa sax ma jirto maadaama reer Mandera tahay dadkaadana ay yihiin marka waxaad leedahay marka waxaad noo haysid waa iska beec jabin yihiin waa iska beec macquul haddii aad siin lahayd talo qof dumar ah ama dhalinyaro ah oo ku saabsan dhanka skin care oo ku nool Mandera maxay tahay taladaas gabdhaha dhalinyarada badanaa waxay sameeyaan bleaching products so waxaan dhihi lahaa inay waxa ay marsanayaan ay iska fiiriyaan ama ay ogaadaan wuxuu jirkooda u diidana ay ka dhaafaan bleaching and excess care iska dhaafaan most of my clients they do a lot of bleaching like sometimes waxaa arkaysaa product skin care marka u marisid jirkooda uu react gareyna they just turn red jirkooda zaid u react gareeyaa marka inay waxaan ay maskaxdooda ay wax fahmaan ay dad wax bartay noqdaan inkastoo dadkeenana ay dambeeyaan ma dhihi karin laakiin wax saas ay u fahansaneen skin care ay u fahansaneen in ay bartaan gabdhihii saasaan siinaa dadka dhexdan waxaan siinaa inay anti aging samaystaan waxaa aragnaa maalmahan dambe Mandera waxaa kusoo badanaya I don't know culture-ga meeshaan ka keennay in gabadhu ay maaragtay marsato scrub magaaladana soo aad saas ku soo aad ama xaafadda dhexdeeda gabadha scrub u marsato is that skin care ma scrub horta wax ma dhimo scrubka wax ma dhimo hadda adiga wax aad ku darin gabdhaha badanaa hadda scrubka wax ay ku daraan hadda adiga wax aadan ku darin scrubka rag iyo dumar bay isticmaali karaan wax ma dhimo scrubka maxaa kaloo waxba noo dhimaynin oo asleeda haddii qofku isticmaalo at least waa iska normal iska ahaan karaan scrubka habolska like malmalka qaar marsadaana jiro xulbada qaar marsadaana jiro like habol things waxba ma dhibaan malabka habolka waxba ma dhibaan صح laakiin haddii oo maaragtay waxa caag ay ku jiraan wax caag ku jiraan waxaan dadkan waa like educated ma qofkan wax ka yeelanaysid qofkan ma soo baran cosmetology ma soo baranin quantity ma ka saayaan they just mix wixii like waxaan baalahan products gaana acid koodu ka badan yahay kan kale some of them mercury qabaan mercury risk of skin cancers waa very high marka way isku dardarayaan wax aad isku dardartay oo acid qabaan habeen meel dhigtay bil amarsanaysid ka waran Soomaalida waxaad aragtay Nairobi waa tagtay Kenyada kale waa tagtay gabdhaha Kenyaanka kala ma marsadaan wax beauty products balse waxaan aragnay cream iyo waxbay wataan laakiin skin code just waa iska glow greener waa iska nuurayaan what's the difference between maxaa farqiga u dhaxeeyo gabdhaha Soomaalida siiba gabdhaheena Mandera iyo kuwa xitaa Kenyada kala joogaan siiba dadkan Soomaalida aan ahayn Kenyada joogaan way ka caafimaad badan yihiin maqaarkooda kan oo joogaan magaalada ama Soomaalida gabdhaheena Soomaalida dadkaas cadeyn ma raadiyaan nuur ay raadiyaan glowing ay raadiyaan soo marka cadaan iyo nuurku waa farqi weyn u dhaxeeyo glowing kan at the end of the day wajigaagu glowgresmo glowing way dadkaas waxay raadiyaan macna ifitaanka wajigaada nuuraya ayaad raadinaysaa qofkan wuxuu raadinayaa cadaan cunto ma jirtaa ama fruits ma jiraan haddaan cuno jirkeyga maaragtay naturally maqaarkeyga awood siin kara ma jiraan dietska waxaa ka mid watermelonka camal digestive system kaadaas uu clean gareynaa pineapple-ka camal hormonalku wuxuu fiican yahay naagaha gabdhaha waxaa jiraan waxyaabo badan carrotska camal waxyaabo badan jira fruits oo haddaa cabtid oo jirkaaga maqaarkaaga qurxanaanayo glowing siinayo malabka camal waxyaabo badan waxaa jira marka ay cuntid ku glowgresma wejigaaga glowgresma jirkaaga okay aad baad u mahadsan tahay adna waraysigaagana waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaadna siisay talooyinkaadna siisayna waxaan rajaynaynaa inay ummadda ay qaadan doonaan sideed u aragtaa marka waraysigan iyo Geesi Media podcast-kaas u aragtaa podcast-kan naftankiisa waa wax aad muhiim ah in lagu soo kordhiyo waa xirfad cusub asagana podcast skin care baahna asaga xitaa waa wax aad muhiim u ah marka waxaan u arkaa iyadan inay tahay wax fiican intaas ayuu nooga eegyahay barnaamijkeena maanta
waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Si aad u hesho sheekooyin kale ku xisigeliya, fadlan subscribe noo saar, lana wadaag asxaabtaada. Ilaa iyo kulanti dambe, anigoo Maxamed Eki Ibrahim waxaan kaaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.